بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني دمانتين كسر هذا برنامج كان جابن ومجيء سوي هاي حقوسا ها أذيك حقوسا سيد على ساعتها وحنكجرنا وقتي آدي أدو أذك بانديميك كوفيد 19 2021 وحسامينكو يا شيء إن بدن أو كميدة ولش بني آدنك وحاكد جلاي قيب بدن أو كميدة ولش بني آدنك ضد بدن أو نجميدة وحيكوين أهل كودي يسحبتو waxaan leeyahay dhammaantood ilaahay ha u naxariisto in badan oo naga mid ah waxay ku waayeen shaqooyinkooda in badan oo naga mid ah waxaa kacay gabi ahaan oo baaba'ay shaqooyinkoodii iyo ganacsigoodii in badan oo naga mid ah waxaa soo wajahay dhibaatooyin xagga maskaxda ah dad badan oo naga mid ah waxay ku dhawaadeen in ay quustaan haddaba waxaan leeyahay ha quusan quusashada iyo rajada waa laba dabeecadood oo qofka bini'aadanka uu leeyahay hase yeeshee mid ka mida ay tahay mid positive ah oo wanaagsan oo aad iyo aad loo amaanay midna ay tahay mid negative ah oo runtii aad iyo aad u xun oo qofka loo baahan yahay inuu ka fogaado markaad akhrisaan mabaadi'da diinta islaamka aayadaha allah uu noo soo dejiyey subxaanahu wa tacaala axaadiista xabiibkeena muxamed sala allahu calayhi wasalam waxaad arkaysaa mar walba qofka muslimka in looga baahan yahay inuu la yimaado rajo saadaal iyo ififaalo wanaagsan aayadaha aad iyo aad ay u badan yihiin iyo axaadiista intaba laakiin waxaan ka soo qaadanayaa dhowr xabo oo ka mid ah si ay dhammaanteen noogu noqoto tusaale aan ku dayano midda koowaad waxay tahay aayadda allah subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay fa inna maca alcusri yusra inna maca alcusri yusra culays walba waxaa wehliya oo la socda fudayd haddana ilaah uu soo celiyey uu leeyahay culays walba waxaa la socda oo wehliya fudayd sababta loo soo celiyey waxay tahay in la adkeeyo oo la muujiyo inay tahay qaacida rabbaaniya mar walba oo dhibaato ay timaado mar walba oo mugdi u yimaado mar walba oo qofka dib uu qabsado in dhibka uu la socdo fudayd marka culimada ay ka hadlayeen macnaha aayadda waxay ka soo saareen macaani aad iyo aad u badan midda koowaad waxay tahay oo allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay fa inna maca alcusri waxaa la isticmaalay kelmadda mac micnaheedu waa maxay culays walba waxaa wehliya oo la socda waa fudayd ma aha wuu ka dambeeyaa ma aha muddo kadib ayuu imaanayaa culays walba oo qofka qabsada ama ku dhaca isla waqtiga isaga waxa ku lamaanan oo wehliya waa fudayd marka meesha waxa ka muuqanaya rajo aad iyo aad u wanaagsan oo qofka la leeyahay dhibaato walba oo kugu dhacda culays walba oo kugu dhaca dhib walba oo ku soo wajaha dhibka isaga waxa wehliya oo la socda fudayd marka rajo wanaagsan ayaa qofka bini'aadanka la geliyay sida meesha ay uga jeedaan midda labaad waxay tahay oo culimada ay tilmaameen in isimka marka al la geliyo sida hadda al-usr oo kale oo haddana la soo celiyo inuu yahay isla isaga laftiisa oo hal xaba uu yahay laakiin marka isimka aan al la gelin oo la soo celiyo inuu yahay mid cusub marka aayadda macnaheedu wuxuu noqonayaa fa inna maca al-usri culayska waxa wehliya yusran fudayd haddana ilaahi subxaanahu wa tacaala waa soo celiyey fa inna maca al-usri culayska isaga ah waxa wehliya waa isla culayska laftiisa waxa wehliya yusran fudayd labaad macnaheedu waa maxay culays walba oo qofka ku dhaca dhib walba oo qofka ku dhaca waxaa wehliya laba fudayd ah marka meesha waxaa ka muuqanaya rajo aad iyo aad u weyn oo qofka la leeyahay ha quusan dhibaatada kugu dhacday waa mid aan weligeed soconayn waa mid aan weligeed macnaha sii soconayn waa mid leh maxay muddo gaaban ama xilli gaaban ama waqti gaaban arrinta iyada ah waxaa sii caddeeyey xadiiska nabiga calayhi assalaatu wasalaam uu ku leeyahay lan yagliba cusrun yusrayni ma dhacayso in hal culays ah uu ka adkaado ama uu ka xoog badiyo labo macnaha fudayd ah laana aayadda waxay tilmaantay hal culays ah haddana waxay tilmaantay maxay laba fudayd ah marka dhammaanteen waxaa loo baahan inaan fahamno dhibaatada way imaan kartaa qofka dib uu qabsan karaa waa run waa laga yaabaa inay ama ha noqoto mid dhaqaale ama ha noqoto mid naf ama ha noqoto mid ehel ama ha noqoto mid kale mar walba oo dhibaato ay timaado mar walba oo culays u yimaado qofka loo baahan yahay in dhibaatada iyo culayska inuu ka dhex raadiyo fudayd iyo solutionka ama xalka muxuu yahay marka laga hadlayo culamaa nafs macnaha maxay tilmaamaan waxay tilmaamaan qofka haddii uu yahay qof rajo ama saadaal wanaagsan leh dhibaato walba oo ku dhacda waxa uu raadiyaa 100 xal oo kala duwan soo dhibaatada macnaha uga baxo laakiin qofka hadduu yahay qof u saaxiib ah macnaha quusasho iyo macnaha baasaysi iyo wax la mid ah fursad walba oo soo marta macnaha wuxuu u sameeyaa ama u yeelaa maxay caqabado iyo dhibaatooyin aad iyo aad u waaweyn taa macnaheedu waa maxay weligii wuxuu ku dhex jirayaa dhibaatada iyada ah
لكن قفك ساداشي سيفي عنتهي إففالذي سيفي عنتهي رجدي سيفي عنتهي لبكا سيفضل أيوة بحيا إن وحكلو كمدأ أدلة معناها إن نبي عليه الصلاة والسلام وتصية رجدا ونكسن دجالكي أحزاب وأتقانان وأدحسوستان معناها إن أنتو لأكا دتكي قال أها ومشركين تأها إيو قبائشي كالعرب تأها دمانتود وحي إسوسو بهايستين إن إسلام كإبابيان أو مركة مدينة معناها دتكي دقنا أو نبي عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي إن إبابيان دجال أي كسو قادين وحلقوا قياسيا إن دتك عدد كذو أها إذا ماذا إلا تبنكن أما كبدا أو واحد هن معناها سكة مدن بيسأ معناها إفتين كسو بحي معناها مدينة نبي عليه الصلاة والسلام يا أصحابته وماشى جوجي مركلي أن صوبا بإنه عكت أن صو مرسينه مركاسا وحي صوتين قبائشي عربته وحي صوتين دتك يهودا وحي تهشيس كنبي يقول لك علي وكبحين مركي نبي يا أصحابته أي أركين عقبضة كسو صعوته أنت لا اكتهي يلبك كسو صعوته أنتو لا هي ويتشدين بل سيدا لو دفاع لها معناها مدينة ودتك إذا ماذا بدن لو دفاع لها ما دام أي أذكتها إن فول كفول لسجوري مادو سلمان الفارسي رضي الله عنهم أي وحى أسوجي ذي تلو آدي ونكسن أو وحى هاي مدينة أن كقرن هذا هذا أما جيس هذا جذد آدي وين سأون نقطة دفاع أما أون نقطة محي بروتكشن أو لو سو قلي وايو أما لو جسو قد بوايو dadka Madiina gudaheeda jooga sidii baa la sameeyay oo Madiina geesaheeda waxa laga qoday godad aad iyo aad u waaweyn iyadoo godadkii la qodayo ay asxaabta waxay la kulmeen jabal ama dhagax aad iyo aad u weyn waxa loo yaqaan waa kudda macnaheedu waxa laga wadaa dhagax adag oo inta isugu tageen si walba ay sameeyeen ay dhaqaajin waayeen markaas waxay dhaheen hadaba nabiga aan u tagno calayhi assalatu wasalaam marka nabigu u yimaadeen nabigu wuxuu sameeyay inuu guntigiisa adkaysto كدب أيها وحو سميه أخذ المعول معناه وحو قاتي برسكي وينا أما فاسكي وينا اللي وجه من يدق حيو قاتي ماشا وحا كم وخانية مركي دباتا ايتمادو إن لو بهن هي قفك إن أولي مادو أخذ الأسباب يعني هذا ما حي أخذ الأسباب إن أوقاتو دباتا وحي الله قبح لها إن قفك اسكو ديو دباتا هي ستوحي وقبح لها فلسمده وقبح لها كبتده وقبح لها عقله وقبح لها إنه لا يماد ضابطه هذا أصحاب ما يسن بهن يا نبي عليه الصلاة والسلام إلى هوانا دفاعية ماشي نسكفر منه نبي موسى بهن نجح أنتو تجي معناها هبابه لكن حسمي أخذ الأسباب وحوقات المعول وحونا كل فتي نجحين يسوي هي بسم الله مركو كل فتي كذب أي نبي يقول هي عليه الصلاة والسلام الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمراء وتكبر سري مركاسا وحود هاي وحن أجيدا مفاتيح وحل إسي مفاتيح الشام وحن أجيدا قريه ووينا الشام كويا لي أي هلكو أجيدا أجد قدودنا مركا ماشا وحكم وقنيس العلماء إليهين معنى قفك هجاميها إن لوبها هي إن دتك معنى إذا مديسة يودتك معناها أتباع ديسة إنه كر أقاضه معنويات كذا إذا ديلا ذا إلى جذر ذا أصحابته وحي يكونوا ليهين هذا اللي هذا أنجونه الخندق الأحزاب لباتا أدوين سدح لباتا أواوين أي سوى جهذي مدكوا وادو حيتهاي وعل آدي أدو قبضا وطبنكم إنك بدأ أي أهايين مد لبادو حيتهاي عملا ذا أو عملا أدو قبو oo ay adkayd inay ku dhex shaqeeyaan oo ay ku dhex dagaalamaan midda saddexaad waxay tahay gaajo aad u xun maadaama laga qabtay magaalada xisaar ama macnaha bando inta waxay gaareen nabiga hataa uu kamid yahay calayhi asalaatu wasalaam in caloosha ay ku xirtaan dhagxaan ay ku adkaystaan si ay gaajada dulqaad iyo adkaysi ay ugu yeeshaan iyadoo saas ay tahay ayaa nabiga waxa uu tilmaamayaa ama isku dayay in macnawiyaadkooda uu kor u qaado uu leeyahay waxa hadda aad ku sugan tihiin dhibaatada aad ku sugan tihiin waxa haddana haysta waxba ma aha meeshan u soconno ayaa aad iyo aad uga weyn markaas asxaabtii markaliya waxay dhaheen markay maqleen mafaatiixa shaam ayaa la siiyay macnaha waxa dib u soo noqday rajadoodii iyo yidadiiladii ay qabeen iyo macnaha qalbigoodii ayaa dib u soo noqday markaasa waxay ka qaadeen macnaha inay ka helaan energy cusub iyo awood cusub markaasa dhagaxii waxa fuqay saddex meelood meel ayaa fuqday nabiga mar labaad ayuu qaatay faaski markaasa mar labaad uu ku dhuftay markaasa waxa fuqay macnaha qaybtii labaad ay ku xigtay nabigu wuxuu dhahay calayhi asalaatu wasalaam u'tiitu mafatiiha faris wallahi inni la ubsiru qasr almadaa'in alabyad
معناها وحا لإسيي فرياشي معناها فارس وحن أجيدا معناها قصري عدا كويا لي معناها فارس أي هذا أجيدا هل كان أي مجيدا مركتا waxay tusaysaa inay tahay yabadiila kale oo nabiga asxaabtiisa uu ku abuurayo u leeyahay macnaha ma aha dagaalkan kii u dambeeyay waxaan ugu soo food lahay maxay in aan jihaad badan galno meelo badan aan tagno ilaahina wuxuu noo ballan qaaday inaan tagi doono shaam inaan tagi doono macnaha faris so taa waxay macnaha asxaabta u tahay in niyadooda ay dhisto macnawiyaadkooda iyo badiladooda ay kor u qaado markaas nabigu wuxuu qaaday faaskii mar saddexaad markii saddexaad ayuu ku dhuftay markaas dhagaxii oo dhan ayaa baaba'ay nabigu wuxuu dhahay calayhi assalatu wassalaam Allahu akbar u'tiitu mafatih al-yaman wallahi inni la ubsiru abwaab sanaa min makani hada macna waxa la isiyay furayashi yaman waxaan u jeedaa ayuu dhahay albaabadii laga galay sanaa anigoo halkan jooga oo halkan ay iga muuqanayaan marka taa waxay tusaysaa in dadka ay ku haboon tahay in lagu abuuro yabadiilo iyo macna rajo iyo sadar wanaagsan nabigana iyadoo lagu jiro fi ahlaki saacaat wa fi as'ab alhalat waqtiga ugu adag ugu dhibka badan oo asxaabta quus ay joogeen ayaa mar kaliya wuxuu sameeyay in uu siiyo shidaal uu ku soo celinayo rajadoodii iyo yabadiiladoodii iyo macnaha awoodoodii marka meesha waxa ka muuqanaya tilmaamaha hogaamiyaha looga baahan yahay in uu yeesho shakina ma lahan in nabigana Muhammad calayhi assalatu wassalaam uu ahaa hogaamiyaasha adduunka midka ugu wanaagsan ugu fiican ugu qatida badnaa waxa kaloo kamid ah adilada macnaha tusaysa saadaasha wanaagsan حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكل يهي معناها كان يعجبه الفأل الحسن مع النبي يقول آديات أجعل فألقة أما ساداشة ونكسن مركي لو يديي معناها هو محي الفأل الحسن معناها وحود هاي الكلمة الطيبة معناها كلمة ونكسن علماء وحي يكون معنايان معناها إن ساداشة ونكسن أي تهي وحول بقفك أسمينيو إنو كفيريو حاجة ونكسن مثال قفك دي مقع لو بحنيو إنو بحي مقع ونكسن هدو قف مقع يسوي هاي هدي مقالة أي تهي إنو بحي مقع ونكسن قفك هدي سفر وآذيو إنو ده هو صونا بنغندونتا هذا سوق ليستي قفك هديو معناها امتحان أولاي هاي إنو ده ها وكباسي دونتا مر والبو حلو بهاي هاي إن حاجة ونكسن وحلقة إيغو سابتو تاوحي كانيسا إنو قفك معنويات كيسا نيديسا رجديسا أيكون أقادو runtii aad iyo aad ay dhibtaa marka arka dad badan oo Soomaali ah oo waxyaalaha ay haystaan macnaha u ceebeynaya ama wax laga sheegaya sala ahaan ay ku leeyihiin shaqo xun ama baawar xun ama guri xun ama wax la mid ah laana taa waxay keenaysaa qofka bani aadanka ah in macnaha waxan uu haysto oo Ilaahay uu siiyay intuu dhihi lahaa yes wax fiican baan haystaa laakiin waxaan rajaynayaa inta in ka sii wanaagsan in intii yarta uu haystay uu xumaynayo marka taana ay tahay kind of معناها قوسشة أو كلنا يتهاي وأنا دبعت أن معناها قفك مسلم كأ أن كفي عنين وحكى له كم يبقى معناها دلالة وتسيسة إنه قفك اللعبة هي إنه سرال في عن يبديل في عن رجع في عن إنه يشرب إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث القدسي ولا هي أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله معاني بدن كوي ماذا لكن وحكم إذا معناها هذا عن شيء معناها وحن إله أوليه سبحانه وتعالى وحديث القدسي وحن كأجد وهي قفك أدون كيجا مليكيسة هدو يقول ملايو وحن ناكسن وانسينا يا هدو يقول ملايو وحنا وهليا ما كماشة وحكم مغنيسة إن قفك السجع إنه ديبي إنه أنقر ما أنت هدا أوتك تقف مدحة ومعناها هنتي بدن هيستا وواحد بدن هيستا وكلها معناها واحد أنت إيش شيء واحد أنت كوسينيا كورما هدي قفك معناها وملح ليمادو أما هدي نيدي سوء حماية أما هدي رجلي سوء حماية ماشي اللي قبلنا نقوله يسوع حسن بهنا هاي ورجع في عنو ليمادو فما بالك معناها محيكلة هاي الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض مالك الملك أي أوحي كلاي هاي أنا عند ظن عبدي حنقول له وهي أدون كيجا مليهيسا فإن ظن بي خيرا فله فإن ظن شرا فله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مركتام يعني هذا وامحي إن قفك مسلم كأهل وبهاي هي مر والبا إلهي أرجينيو إنه ونايجيو هدو جناعسي بلابيو إن أونيستو إن إلهي جناعسي أبركينيو إن هدو شقة بلابيو إلهي ويديستو إنه شقة أبركيو إن هدو سفريو إلهي ويديستو إنه سفر كيسا كسونا بدعيو
إن هدو قفك ثم العصب ودسيو أما قيس عصب ودسيو إلهي إنه ويديستو إنه بركيو مر والبا waxay ku haboon tahay inuu qofka xagga wanaagsan uu ka eego hadii xagga xun wax ka eegto waxa laga yaabaa ilaahay inuu niyadaada ku aqbalo waxa jirta qisad dhab ah oo nabiga calayhi asalaatu wasalaam nin wuxuu soo booqday carabi ah balbaadiye ah oo badaw ah markuu u yimid uu soo booqday ayaa wuxuu ku dhahay tahurun wad caafimaadaysa wa ka boodaysa dadka baadiyaha ka yimid waxa lagu yaqaanaa xoogaa ad adayg markaasuu nabiga intuu saa u firiyo wuxuu ku dhahay bal hiya humma tafur ala shaykhin kabiir tuziruhu alqubur wuxuu dhahay maxaa dhahday ma aha saa sheegtay bal hiya humma tafur wa qandho aad ii gubaysa ala shaykhin kabiirin nin oday ah oo waayeel ayaa haysaa tuziruhu alqubur macnaa waxay geyn doontaa qabriga oo macnaheedu ay tahay waa u dhiman doonaa nabiga muxuu dhahay calayhi asalaatu wasalaam fanacam idan haddaba waa sidaa imaam alxaafid ibnu xajar waxa uu leeyahay qisada markuu ka hadlayey ninka isaga ah baadiyaha ahaa wuxuu u dhintay xumadda iyada ah bal ka warrama hadduu dhihi lahaa macnaha waa run ilaahay ducada nabiga ilaahay ay aqbalo ka warrama hadduu wanaajin lahaa niyadiisa waa meesha culimmada ay leeyihiin qofka marka wax xun uu saadaashado wax xun ayaa ku dhacaya hadduu qofka wax fiican uu saadaashadana waxay u badan tahay ilaahay inuu siiyo wax wanaagsan marka markasta waxaa fiican qofka muslimka ah inuu wanaajiyo saadaashiisa ma haboono qofka inuu quusashay wax lamid la yimaado haddaan usoo noqono macnaha dhanka culimmada ama dadka aqoon-yahanada ee ka hadla cilmu nafs waxay leeyihiin labadan kooxood haddaan soo sheegnay kooxda macnaha u saaxiibka rajada saadaasha ififaalada wanaagsan iyo kooxda u saaxiibka ah macnaha quusashada baasaysiga iyo wax la midka ah labadoodaba waxaa lagu sameeyay baaritaan aad iyo aad u weyn waxaa la ogaaday kooxda midigta ah ee u saaxiibka ah macnaha rajada iyo saadaasha iyo ififaalada wanaagsan in ay haystaan faa'iidooyin aad iyo aad u badan oo ay ka mid tahay in nolosha qaabka u arkayaan ama nolosha qaabka ay macnaha ay u maareynayaan ay tahay qaab aad u wanaagsan oo saadaasha ay haystaan ay siinayso energy iyo awood ay ku gaaraan macnaha go'aamo aad iyo aad u fiican waxay kaloo tilmaameen in dadka noocaas oo kale ah oo saadaashooda ay fiican tahay ibadiladooda ay fiican tahay himiladooda ay fiican tahay in mar walba maskaxdooda active ay tahay oo xagga wanaagsan ay u soo jeedo haddii dhibaatooyin ay la kulmaan haddii culays ku yimaado way dhacdaa qofka bini'aadanka si walba uu u fiican yahay in culaysyo badan ay soo wajahaan mar walba waxay isku dayayaan in culayska haysta ama dhibka haysta ay u raadiyaan solution ama xal waa meesha ay ku leeyihiin qofka hadduu qof uu yahay saadaal wanaagsan dhibaato walba oo loo keeno wuxuu u raadiyaa 100 xal ah laakiin qofka hadduu yahay qof quusasho u saaxiib ah macnaha fursad walba oo soo marto wuxuu raadiyaa 100 caqabadood iyo 100 dhibaato iyo 100 iimood uu ku eedeynayo waxa kale oo ay tilmaameen dadkan macnaha u saaxiibka ah saadaasha iyo rajada wanaagsan in caafimaadkoodu uu aad iyo aad u wanaagsan yahay oo xitaa waxay ku leeyihiin qofka hadduu yahay qof saadaal wanaagsan macnaha waxaa kor u kacaya oo sare macnaha u kacaya caafimaadkiisa qof wuxuu noqonayaa xay ah qof wuxuu noqonayaa energetic ah qof wuxuu noqonayaa macnaha sameynaya physical exercises qof wuxuu noqonayaa xitaa difaaciisa jirka macnaha uu yahay mid aad iyo aad u adag oo iska caabinaya cudurro badan oo qofka si sahal ah ugu dhici lahaa waxay kaloo ku leeyihiin macnaha qofka saadaashiisa ay fiican tahay ama ay wanaagsan tahay waxay mar walba ku guulaystaan ahdaaftooda oo qofka haddii uu yahay qof saadaashiisa ay fiican tahay hadaf uu degsado ama gool uu degsado mar walba wuxuu isku dayayaa hadafka iyo goolka si u gaar lahaa caqabad walba oo ku timaada wuxuu isku dayayaa inuu ka gudbo of course macnaha ma aha waddada mid lagu daadiyo ubax oo sahal ay tahay qofka hadaf walba uu gaaro macnaha uu degsado inuu macnaha ku guulaysto xaaladaha qaarkood way adag tahay laakiin waxay isku dayayaan caqabad walba oo ka hor timaada dhibaato walba oo ka hor timaada dhib walba oo ay la kulmaan in ay ka gudbaan oo marka ay ka boodaan laakiin qofka hadduu yahay qof quusasho u saaxiib ah caqabad walba oo macnaha ka hor timaada oo uu la kulmo macnaha wuxuu sameynayaa maxay give up ma noqonayo qof wixii sii wada maskaxdiisa ma keenayso xal ama solution wuxuu aaminayaa in waxan aysan ahayn wax shaqeynaya ama suurtagal aysan ahayn marka labada kooxood ee ah laba kooxood oo kala duwan macnaha mar kasta waxaa fiican inuu qofka xagga wanaagsan u aado oo saadaasha iyo rajada wanaagsan inuu macnaha ku dadaalo
إن هوني إن هيد عدان وأرغت ذلك معناها أمريكان كيو إس إي واحد هيد هوني إن لا أنا هين لقى أنا هين وأنا هدلين بل أوفر سدا ما ليه أقومهم سنة أوران أيا كم مكان عندما قبته حمد جيده لقى ملهن وحمق لي ميدو أفكيدي واشب هدلي ميسو هذا وحى إقاذتي و PhD أي هو الاستين إقاذته وحى نقطة أكتيفيست قف الدودة حقوق ذا دتك معناها حنوسا أو معناها أي حقوق ذودي أي أرادنيسي أي الدوديسي إن هذا يكون هذا شو حكم ذا قفك هدوية هي قف معناها هدوية قف رجو هي سادال وناكسن معناها له هدوية هي الباب والبؤ فرحد مركو فرمه وحيد هذي وحافرمية بقول الباب أوكله مركز تأو حرم الباب هذا فرحد ميت كميدة وحافرمية الباب بدن أوكله كلا دون وفرحدها حسيا شدتك بدن كودا وحي إسكا أكفر ديان أو أك جوغان الباب في كوات أو وقتك أياماش وقدمانية سو تامعني هذا وامحي قفك هدوية قف رجا هايستا أو معناها سغال في عنها هايستا هدي الباب وكسو حرمه وحو راذينيا إنو راذيو وهلا الباب كلا أوكله دون ومركا وكمر ما الباب كان حرمي لكن قفك هدوية قف صح معناها قوس وصاحبها أو باسيس وصاحبها الباب كان حرمي أي وقتي وقدمانية الباب كوحلقة يبانو يهي بنعسولها وحلقة يبانو يتهي شقاء وهيستي وحلقة يبانو يتهي فملا مقويس وهيستي هدي لباتا اتمادو أورينتا أي دماتو وحامهيما قفك مرور بين الاسكو دايو محا حلقة محا سلوشن محا إيغو حيقا أي سنقون إنو وقتي سوغان وكبحي أما وكدمايو إنو باسيستو أما إنو معناها عقبت معناها وكدكتو نورشي سوغان وهكذا أما معناها وإستاجيو وحيلا هذا أنكار لنا دمانتو وإن بدن ومهمة وأنا قلنا أي فائدة نوجدته مركا وحن قفل بعديه لها فضلا ونوجهي حل أدق أيام كجرنا وقت أدق أيام كجرنا لبعتوين بدن أي دنيا السعودة لكن وحن ديه لها فضلا حقوسا ورؤسعه إن شاء الله تعالى برنامج كان وحاول إياها قيب لبعض أصابع دون تدوان هذا بقى قيب تلبعض لسعه يسمى كلافين أدوى ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته